السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكينا عثمان حديق halkan waa Sum TT channel waa muuqaalkeenu koobaad taxani aan idinka balaqaaday ahaa video editing maanta waxaan muuqaal u hayaa dadka doonaya inay shashada mobilkooda duubaan kadibna edit ku sameeyaan sidaan aniguba adeegsado haddaba yaa waan idinku daalina ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan okay saaxiibayaal ugurantii haddii aan idin sheego inta aan video editing-kan ama taxanan ku guda jirno app-kaan isticmaali doono waa application-ka la yiraahdo KineMaster sababta aan KineMaster ku doorto waxay tahay KineMaster waa application-ka kaliya ee multi-layer lagu isticmaali karo okay saaxiibayaal ugu horeyntii waxaad u baahan tahay application-adii lagu duubi lahaa shaashada mobilkaaga waxaad ka helaysaa Play Store-ta ayagoo aad u far badan tusaalaan haatan haddii aan Play Store soo furto kadib qaybta qoraalka ama qaybta waxa laga raadiyaa haddii aan ku qoro screen recorder xaqiiqdii waxaad ka helaysaa iyagoo aad u fara badan qaar run ah qaar been ah waxaan kula talinayaa aniga inaad adeegsato mid ka mid ah labadan waa Mobizen screen recorder iyo DU waa midkaan haatan aniga wax ku duubayo xaqiiqdii DU waa mid aad u fiican marka midka aad doonto aad adeegsan kartaa sidoo kale waxaad u baahan tahay mobile frame sidaan anigu adeegsado waxaad aragtaan in screen recorder-ka aan soo dhaxgeliyo mobile midkaas ayaa waxa la yiraahdaa mobile frame haddii aad rabto aad iska dhaafi kartaa haddii aad rabto adeegsan kartaa waxaad soo furanaysaa si aad u hesho mobile frame Chrome ayaad soo furanaysaa kadib qaybta searching aad waxaad ku qoraysaa mobile frame PNG transparent kadib go ayaan leenahay kadib halkan image ayaan ka dooranaynaa halkan wuxuu ku soo tixi doonaa mobile frame aad u fara badan balse waxaa qasab ah inuu mobile frame-kaadu uu yahay mid transparent ah oo wax background lahayn intaan meesha wada yaala badankooda waxay leeyihiin background sidoo kale qaar transparent way ku jiraan tusaalaan mid ayaan soo degsanaynaa si aad u soo degsato korkiisa ayaad ku dhigaysaa kadib download image ayaad leedahay okay saaxiibayaal hadda waxaad u baahan tahay KineMaster midaan hadda aniga isticmaalayo ayaan idin soo dhigay videogan hadda aad daawanaysid hoostiisa insha Allah waxaan rajeynayaa inuu ku shaqeyn doono marka waxaad soo furanaysaa KineMaster haddaba KineMaster sidaan ayuu ku soo furmi doonaa marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa inuu marka inuu waxaan ku soo qoro waxaa marka muhiim ma ahan haddii aad rabto run analyze waa dhigi kartaa marka haddii aad doonto waa iska dhaafi kartaa marka hadda waxaan leenahay remember letter aan leenahay marka haddii aan intu soo muuqaalka aan doonayn inaan sameeyno videogan yacni ayaan daaraya tusaalahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلالكن muuqaalkan oo kale ayaan doonaynaa inaan ku sameeyno application-kan marka waxaad leedahay balaaskaas ayaa taabanaysaa kadib waxaad leedahay empty project markaad empty project dhahdo halkaan uu keeni doonaa marka halkaan haddii aan yacni sharaxaad kooban ka bixiyo meeshaan madow waa preview-gii waa meeshii wixii aad jajaraysay ka soo muuqanayeen halkaan waa timeline sidoo kale halkaan waa toolskii aad isticmaali lahayd sidoo kale halkaan waxyaabo kale oo tools ayaa kasoo bixi doona marka si aad muuqaalkaada gadaashiisa background ku soo muuqan doono si aad u soo darato media ayaad leedahay kadib haddii aad rabto yacni background aad kala soo degtay Google waad ku isticmaali kartaa marka hadda anaga waxaan dooranaynaa color caadi ah background ayaan leenahay kadib halkaan waxaad ka dooranaysaa background-ku aad doonayso tusaalaan haatan waxaan doonayaa midkan ayaan doonayaa kadib tigdaas ayaad saaraysaa marka halkaan waxaa ujeedaa marka inaan background ku haysano marka background-ku waxaad la ekeysiinaysaa muuqaalkaada inta uu soconayo haddii aad doontana waad isku dhex diri kartaa tusaalahaan midkan laftiisa ayaad koobi sii dhasi kartaa kadib halkaan ayaad waxaad kasii bedelaysaa yacni colorka waad isticmaali kartaa idan habkaas waad isticmaali kartaa marka muuqaalkaada inta uu soconayo ayaad la ekeysiinaysaa markaad la ekeysiiso hadda waxaad u baahan tahay marka inaad soo geliso muuqaalkii aad ka soo duubtay shaashada mobilkaaga layer ayaad tegaysaa sidoo kale halkan waxaa muhiim ah layerkan yacni media halka ay ku qoran tahay waa inuu lahaadaa sawir iyo video halkaas waxaad u jeedaa yacni sawir iyo video inay dul saaran yihiin marka waxaa laga yaabaa keliya inuu sawir kuu soo saaro marka qaarna waxaa laga yaabaa inuu labadooda kuu soo saaro marka midkan hadda aan isticmaalino ayaa waxaan idin soo dhigayaa description-ka marka media ayaad leedahay
kadib halkan aad waxaad ka dooranaysaa muuqaalkii aad ka soo duubtay shaashada mobilkaaga halkan ayuu u yaalaa kan ayaan dooranayaa kadib halkan ayuu ku leeyahay yani resolution aan kusoo duubay ayaa yani mid sare ah kadib okay aan wax problem marka halkan waxaad u jeedaa marka inuu inoo soo galay video waa shaashadii aan ka soo duubnay mobilkeena halkan waxaad u jeedaa marka video haddii aad rabto jijiif aad u isticmaali kartaa haddii aad rabto waa soo dhaweyn kartaa yani sidaa doonta ayaad ka heli kartaa markaad halkan joogto waxaad u baahan tahay marka inaad kusoo darto framekii layer ayaad ku naqanaysaa kadib media ayaad leedahay meeshii uu ku galay ayaad aadaysaa waa kana layerkii marka waad la ekaysiinaysaa yani si uu qabsado muuqaalka halkaas waxaa u jeedaa inuu qabsaday marka haatan waxaad u baahan tahay inaad la ekaysiiso yani videoga sidaas ayaad u jiidaysaa marka sidaas ayaad u jiidaysaa uu la egyahay waad u jeedaa marka sidoo kale markaad halkan joogto si yani muuqaalkaad u noqdo mid qurux badan in animation ayaad ku diraysaa iyo auto animation halkaas video korkiisa aad taabanaysaa kadib in animation halkan aad waxaad ka doonaysaa in animationka aad doonayso tusaalan kaas ayaan doonayaa sidoo kale framekana sidoo kale in animation ayaad ku diraysaa hadda haddii aan bali dhaho way kala soo hormarayaan sidaas ayaad u jiidaysaa tusaalan kaas ayaad gadaal u celinaysaa sidoo kale video gadaal ayaad u celinaysaa tusaalan hadda bali haddii aan dhaho tusaalan hadda haddii aan bali dhaho halkaas waxaa u jeedaa yani halkaas waxaa u jeedaa yani inaa marka uu soo galaayo si qurux badan uu kusoo galaayo marka sidoo kale haatan waxaad u baahan tahay haddii aad doonayso inaad yani codka videoga codka wato haddii aad dheerayso video korkiisa ayaad taaban doontaa kadib halkaas ayaad tegaysaa videoga aad dooranaysaa marka hore waa muhiim halkaas ayaad tegay kadib halkaan codka aad dheeraynaysaa waa codkii originaalka ahaa ee videoga la socday kadib tigda ayaad saaraysaa haatan waxaad u baahan tahay marka loogadaada inaad soo gashato layer ayaad ku naqanaysaa kadib media loogadaadii ayaad soo qaadanaysaa sidoo kale waxaa muhiim ah in loogadaada ay tahay transparent haddii loogadaada background wadato videoga aad u foolxumaanayaa marka meeshaad rabtay aad dhiganaysaa tusaale halkaas ayaan dhiganayaa kadib videoga ayaad la ekaysiinaysaa hadda haddii aan beli dhaho sidoo kale loogada haddii aad bartid in animation waad u yeeli kartaa yacni adiga ayaa dooq iskale marka hadda waxaad doonaysaa sidoo kale inaad kusoo darato background music sidaan anigu adeegsado waxaad maqsan yani markii aan hadlayo kale music inay hoos ka yeerayso marka audio ayaa tegaysaa kadib halkaa inaad waxaad ka dooranaysaa yani insha allah mar ayaan idin tusi doonaa qaabka loo helo background music oo free ah oo copyright la'aan ah middan ayaan ku dirayna tusaale ahaan marka balaaskaas ayaa taabanaysaa haatan marka waxaa muhiim ah inaad background musica aad codkeeda yarayso background music korkiisa ayaa taaban doontaa kadib halkaas ayaa tegaysaa adiga 3% 5% ayaa laga dhigtaa marka mid diyaar rabto ayaad ka dhiganaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi halkaas waxaad u jeedaa marka inaan muuqaalkii ku haysano sidoo kale haddii aad doonayso muuqaalka inaad yani meel ka mid ah qariso yani haddii aad rabto number amba gmailkaada kore haddii aad doonayso inaad qariso layer ayaad tegaysaa kadib effect ayaad leedahay halkan ayaad waxaad ka dooranaysaa yani effectigan tusaalan kaas ayaan dooranayaa kadib yani kan ayaad ku badinaysaa yani halkaas waxaa u jeedaa yani video inuu qarsamo tusaalan hadda haddii aan beli dhaho halkaas waa loo jeedaa waxaan bilaabi doonaa tutorialkii halkaas waxaa u jeedaa yani inuu noo qarsamay sidoo kale haddii aad doonayso inaad text iyo waxyaabahaas ku darato ama sawir waa soo dul saari kartaa tusaalan text haddii aan intuso layer ayaad tegaysaa kadib text ayaad leedahay halkan aad ku qoraysaa textkaada meeshaad doonto ayaad geysan kartaa marka waana sii edit gari kartaa textka marka haatan waxaad u baahan tahay inaad export ku samayso si aad videoga banaanka u geysato kadibna aad YouTube ku upload gareyso yani halkaas ayaad tegi doontaa halkaas markaad tagto halkan ayuu kusoo gudbin doonaa marka halkan waxaad ka dooranaysaa yani Full HD 1080 pixel ama high definition aniga inta badan high definition ayaan doortaa waa 1280 marka halkan waxaad ka badinaysaa yani quality video haddii aad halkaas full ka dhigto videoga MB-giisa aad ayuu u farbadnaanayaa marka dhaxad bartamaas camal ka dhigo halkan waxa uu jeedaa upload yani videoga MB-giisa wuxuu qaadanayaa haddii aan full ka dhigo waxa uu jeedaa 180 MB haddii aan halkaas ka dhigana waxaad u jeedaa yani inuu 96 MB yahay marka halkan meesha rabta ayaad ka dhiganaysaa si uu videoga quality-isu bato kadib export ayaad leedahay sidaas ayuu wuxuu ku galayaa gallery-ga mobilkaaga mid kale waxaan filayaa inaad taqaaniin qaabka YouTube loogu soo upload gareeyo muuqaal adigoo adeegsanaya mobilkaaga taas aad ayay u fududahay marka maanta muuqaalkeena koobaad halkaas ayuu ku egyahay waxaan filayaa inaad ka faa'iideen videogan fadlan haddii aad ka heshay videogan like
haddii aad ka helin dislike sidoo kale ka mid noqo walaalaha ku xiran channelka adigoo taabanaya subscribe waa anigoo asxaabkiina Cusmaan oo idin wassalaamu calaykum